lix cabdibile oo dawaafaya dhulka xeebta ah ee Cadalle xildhibaano iyo saraakiil iska qoslaya oo aan lahayn waji argagax leh oo colka duulaanka lagu yahay ka baqi karo Cadalle halka barbilowga looga dhigay in duulaankii beesha Abgaal ee ka dhanka ahaa shabaab ka bilowday weli ma noqon mid tis qaaday oo sida gaari shaagagii beelay ama banjaray oo kale tilaab lama qaadin iska badaa in la bargaaro geesiyaasha Hiiraan kula dagaalamaya shabaab abaabulka beeshan Abgaal oo qaatay 3 bilood ayaa la aaminsan yahay in xabad ridistooduna qaadan karto 3 kale maadaama wali ay ku foogan yihiin wax u eg film lagu xayeysiinayo barta Netflix saraakiisha iyo xildhibaanada ayaa isku sawiraya xeebta Cadalle iyo deegaan dalxiiseedka Warshaaq kuwaas oo la moodo inay indhaha dalxiisayaasha adduunka ku soo jeedinayaan dhulkan nimcada alle ay ceegaagto balse aan ahayn jiid dagaal oo shabaab joogo baraha bulshada tan iyo shalay waxaa qabsaday xamar oo 100 gaari ay ka baxday Jowhar jeneraal ayaa ka duulaan tagay Cadalle looma kala harin 24 saac waxaan gaari doonaa xarad dheere ceel dheer iyo Masagawa laakiin wali waxaa muuqata inaanay hirgelin mahmaahdii ahayd mudulood ku soo muraaday mooridiisa lama sii maamuli karo beelaha Saleebaan baadicadde iyo gaal jecel oo sida ay isku sawirayeen loogu yimid fadhigooda ayaa ku horeeyay bandhiga igu sawirta ah ee hadda Abgaal ku daysanayso hase yeeshee eeday ilaa ayba gaartayba in xildhibaankii gaal jecel uu ka soo dhex muuqday qol sariir iyo sinsiyeeri ay u taalo isaga oo shabaab u hanjabaya saakana waxa uu soo qaatay boosh iyo beerlaab isagoo ag fadhiya sandaqadaha ay ku hoydaan digaaga Daahir Jeeso ayaa laba kala dooran kara in sida beelaha la dego gobolka uu dagaalka u galo oo jiida uu tago ama in xamar uu jikinkiisa isaga cuno dhanka kale Abgaal oo jeneraaladoodii waaweynaa aysan jiida ka soo muuqan ma dagaal gelin karaan xildhibaan Maxamed Cajiib iyo Yaasiin Fari kuwaas oo aan lahayn khibrad ciidan ama dagaal gelin inta badan deegaanada dowlad goboleedyada ayuu si iskamida uga socdaa xilligan ololahan u muuqda mid waji cusub leh markii uu bilowday dagaalka ay wadaan macwiisleyda waxaa soo baxayay walaac laga qabo natiijada imaan karta dagaalka kadib dadka qaarna waxa ay dowladda ku eedeynayaan in si ka fiirsi la'aana ay dagaalka u gashay oo wali aanay u diyaar garoobin qabiilaadka Soomaalida si kastaba hadda sheekada waxay ku soo biyashabanaysaa igu sawir in qabiil kasta uu helo hub tiro badan oo hadhow uu kula dagaalami karo beelaha dariska la ah marba hadii aan jiida loo wada sinnin saaxiib sawir mar kale sana hey ama seeraan